halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar, facebookga iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan, kulanti wacan khayrta hawada inagala xiriirtay meel kastoo inaga maqlaysaan. waa talaado 10 bisha May sanada 2022. arrimahan barnaamijka dunida iyo maanta idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo magacaabay guddi madax bannaan oo soo baara kana soo warbixiya komishinka doorashooyinka. musharaxa madaxtinimada ee xisbiga waddan ee mucaaradka oo arrintaas ku tilmaamay tallaabo waqtiga uu madaxweynaha ugu darsanayo. malaawaalkiisii koowaad maanta sameeyey oo aynu soo saaray dekreeto oo ku magacaabay guddi aan dhexdhexaad ahayn oo hal xisbi ah. taa macnaheedu inuu yahay tallaabadii ugu horreysay lagu kala dirayay guddiga doorashooyinka qaranka oo imika diyaar u ah diiwaangelintii bilaabaan. taa macnaheedu waxay yahay doorashoba inaanay dalka ka qabsoomi doonin haday tahay mid madaxweyne iyo mid kale toona. guddiga baarlamaanka Soomaaliya ee wada qabanqaabada doorashada madaxtinimada ee dalka oo shaaciyay in 39 musharax ay isu diiwaangeliyeen doorashadaasi. bogga isdiiwaangelintana uu sidaasi ku xirmay. wakiilada beesha caalamkana waxa ay soo dhaweeyeen qorshaha lagu soo gabagabeynayo doorashada Soomaaliya. isla guddiga qabanqaabada doorashada madaxtinimada wada ayaa ku adkaystay in ciidamada qaranka ay qayb ka yihiin ciidamada sugaya ammaanka doorashadaasi. meesha ay doorashada ka dhacaysa teendhada waxaana daafaha ilaalinaya ciidamada AMISOM. ciidamada ammaanku ee Soomaaliya waxay ka shaqaynayaan guud ahaan wadooyinka iyo meel walba oo soo gasha iyo guud ahaan wadooyinka caasimadda si aanan isku halayn amniga uusan u dhicin. kaliya ayaa maaragtay la yiri hal loo wareejiyo qaybta agagaarka teendhada iyo doorashadu ka dhacayso. dowladda Ukraine oo sheegtay in ugu yaraan 100 qof oo rayid ay weli ku harsan yihiin dhuldhaca hoose ee warshada birta farsamaysa ee Mariupol iyo dabayl xoogan oo ku dhufatay degmada Taleex oo khasaare geysatay. horta ma aanan qiimeeyno ma ururin, laakiin kolay waa mahanti aad u fara badan. qiyaasta marka la qiimeeyo ilaa $500,000 bay tagaysaa. qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaalida caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan ay wadajirka u soo saareen Samiir Cabdullaahi Jaamac iyo Xasan Cali Geyle. anigu Cabdi Ibraahim Cagaarna la socodsiinayo, balse marka hore barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Kawthar Maxamed Cabdullaahi. mahadsanid Cabdi Fataax. qoyska Mr Marcos hogaamiyihii hore ee Kiligitaliska ahaa ee Philippines ayaa dib ugu soo laabtay xukunka kadib markii uu doorashada madaxtinimo ee wadankaasi uu ku guuleystay Ferdinand Marcos Jr. aabaha dhalay ninkan doorashada ku guuleystay ayaa lagu qasbay inuu xukunka ka dego sanadkii 1986 kadib markii ay dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo xukunkiisa Kiligitaliska ahaa. waxa uu helay 2 jibaar codadkii uu helay musharaxii doorashada kula tartamayay ee Leni Robredo. Mr Marcos ayaa ballan qaaday inuu mideyn doono dadka reer Philippines, balse taasi ayaa ku adkaan doonta maadaama dad badan ay si weyn ugu soo horjeedaan doorashadiisa. Ferdinand Marcos oo marka hadlayay xarunta dhexe ee xisbigiisa ayaa waxa uu yiri sidan: ngunit kahit hindi pa tapos nga ang pagbibilang, xataa haddii aysan codbixintu dhammaan, tahniyadayda lama sii sugi karo. waxaan u mahad celinayaa qof walba, dadkii kaalmadana siiyey, kuwii qadiyadeenna ku soo biiray, nafurnimadii aad muujiseen, hawshii adkeed ee aad qabateen, wakhtigiinnii, awooddiinnii iyo dadaalkiinnii. shaqada noocaas oo kale ah, dadaal kasta oo xajmigaas leh ma aha mid uu qof kaliya sameeyo. dad badan ayaa ku lug leh oo siyaabo badan oo kala duwan u shaqaynaya. dhammaantoodna waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. it involves very many people working in very many different ways, and to all of them I thank you. dowladda Sri Lanka ayaa isugu soo baxay banaanka hore ee saldhig military kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inay halkaasi ku dhumanayaan ama ay ku gabanayaan ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Mahinda Rajapaksa iyo xubno kale oo ka tirsan qoyskiisa. muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dibadbaxayaal careysan oo ku sugan saldhigga aadka loo ilaaliyo oo ku taala dhanka waqooyi bari ee dalkaasi, kuwaas oo ku dhawaaqaya erayo ay ka mid yihiin madaxweynaha hays casilo. dibadbaxyo iyo rabshado ka dhacay dalkaas ayaa horseeday inuu shaqada iska casilo ra'iisul wasaaraha dalkaasi. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay isku dhac shalay dhex maray taageerayaasha dowladda iyo kooxo mucaarad ah, halka ku dhawaad 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen. dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ugu yaraan 100 qof oo rayid ah ay weli ku xaniban yihiin qaybta hoose ee warshada farsamaysa birta ee Azovstal oo ku taal magaalada Mariupol, taas oo weerar xoogan kala kulmayso ciidamada Ruushka. waxaa sidoo kale goobtaasi ku sugan in ka badan 1,000 askari oo ka tirsan ciidamada Ukraine. ciidamada Ruushka ee duulaan ka soo qaaday ayaa qabsaday qaybo yar oo ka mid ah gobolka Donbas ee bariga dalkaas,
balse ciidamada Ukraine ayaa iska caabiyey weerarka Ruushka. ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale bartilmaameedsaday dekedda magaalada Odessa oo ku taala galbeedka Ukraine. hal qof ayaana ku dhintay weerar gantaalo ah oo xalay lagu qaaday magaaladaasi. qaramada midoobay ayaa qiyaasaysa in dadka rayidka ah ee lagu dilay duulaanka Ukraine ay ka badan yihiin ama ay ka badan tahay tirada rasmiga ah oo ah in ka badan 3,000 oo qof. garsoorayaasha dalka Iiraan ayaa ku adkaystay in la fuliyo xukun dil ah oo lagu soo rogay nin haysta 2 dhalasho oo Sweden iyo Iiraan ah. Ahmed Reza Jalali ayaa ahaa bare caafimaad oo ku sugan Stockholm markii lagu xiray Iiraan sanadkii 2016 xilligaas oo sidoo kale lagu eedeeyay inuu u basaasay Israa'iil. toddobaadkii hore warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in xukunka dilka la fulin doono dabayaaqada bishan. koox haween ah oo dibadbaxyo ka dhigay magaalada Kabuul ee caasimadda Afghanistan kaasoo ay ugu soo horjeedaan go'aanka Taliban ee ah in haweenka ay ku qasban yihiin xirashada dhar jirkooda oo dhan daboolaya marka ay ku sugan yihiin goobaha ay dadweynaha isugu yimaadaan. go'aankan ayaa kii ugu dambeeyay ee ka soo baxa Taliban tan iyo markii ay la wareegeen Afghanistan bishii August ee sanadkii 2011 aan yiraahdee 2021. xaaladdu sida tan ay ahayd markii dibadbaxyadu ay dhacayeen. عدالت 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 مرگ به این جهالت مرگ به این جهالت عدالت 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 خسته ایم از اسارت خسته ایم از اسارت ما عدالت میخواهیم ما عدالت میخواهیم برقع ایجابی ما نیست برقع ایجابی ما نیست. ugu dambeynna ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay weerar ay koox falaaga ah ka fuliyeen waqooyi bari ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. dadka ku nool magaalada Duju ayaa sheegay inay tuhmayaan 2 koox oo maleeshiyaad ah oo bartilmaameedsaday xerada ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah. waxay sidoo kale sheegeen in dhibanayaasha weerarkaasi ay u badnaayeen caruur oo dilkooda loo adeegsaday baangado. nin askari ahaa ayaa sidoo kale ka mid ah dadkii dhintay. axadii la soo dhaafay ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhintay weerar ay isla maleeshiyadaasi ku qaadeen dad macdan qodayaal ah. warkiina waa naga intaa Cabdifataax. aad baad u mahadsantahay Kawthar Maxamed Cabdullaahi. taasi aad wararka caalamka ee la socodsiinaysa dhegeystayaal u diyaargarooba qaybaha kale ee barnaamijka. aynu ku bilownay madaxweynaha Jamhuuriyadda Goonistaaggeeda ku dhawaaqday ee Somaliland ayaa maanta waxa uu magacaabay guddi madax bannaan oo soo baara kana soo warbixiya komishinka doorashooyinka. muuse biixi cabdi ayaa xeerka guddigaasi uu ku magacaabay waxa uu ku sheegay in kadib markii uu arkay khilaafka maamul iyo midda maaliyadeed ee soo kala dhexgalay xubnaha komishinka uu caqabad ku noqon karo xilgudashada waajibaadka iyo hawsha shaqo ee komishinka doorashooyinka qaranka. guddigaasi uu magacaabayse howl gaar ayuu u diray oo ay ka soo warbixin doonaan. haddaba xeerka madaxweynaha Somaliland waxaa soo akhriyey waan goorrood khadka taleefanka ee magaalada Hargeysa faahfaahinta ku weydiiyey wariye Xasan Galayr. cabdifataax uu guddidan uu soo saaray madaxweynaha Somaliland ee baaritaanka madaxa bannaan leh ku samayn doontaa guddiga doorashooyinka Somaliland ee khilaafka uu soo kala dhexgalay ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay in tallaabadan uu qaaday kadib markuu arkay khilaafka maamul iyo maaliyadeed ee soo kala dhexgalay xubnaha guddiga doorashooyinka. arrintaasoo uu sheegay in ay caqabad ku noqon karto xilgudashada waajibaadka howlaha shaqo ee guddiga doorashooyinka Somaliland. sidaas daraaddeed ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay in digreetadan uu ku magacaabay 5 xubnood oo arrintaasi kasoo tala bixin doona baaritaan madax bannaanna ku samayn doona guddiga doorashooyinka Somaliland. xubnahaasi waxay kala yihiin maxamed jaamac cabdi oo guddoomiyaha, farxaan maxamed cali oo xubina, siciid xasan habane oo xubina, axmed salabaan jaamac oo xubina iyo ugu dambeyn bashiir cabdi xariir oo isna xubina. madaxweynuhu waxa uu ku xusay waraaqda uu soo saaray in xubnahan guddiga uu magacaabay ay shaqadoodu noqon doonto in baaritaan madax bannaan ay ku sameeyaan nidaamka maamul iyo milka maaliyadeed ee komishinka doorashooyinka iyo nidaamka iibka iyo qandaraasada iyo adeegyada ay soo iibsadaan guddiga doorashooyinka Somaliland. sidoo kale waxa iyana baaritaan ay ku samayn doonaan nidaamka maamul iyo diiwaangelinta hantida
raagta ee komishanka doorashooyinka somalilan. ma la og yahay waxa ku dhaliyay madaxweynaha in guddigan uu magacaabo xilligan iyo wakhtiga guddigaasi ay soo gudbin doonaan waxay ku soo ogaadaan baaritaankooda? cabdifataaxow sidaynu idaacadaheennii hore ka baahinay hore waxa u jirtay in khilaaf soo shaacbaxay oo warbaahinta ay isu mariyeen uu soo kala dhex galay xubnaha 7 ee guddida doorashooyinka somalilan, kuwaas oo laba u kala jabay oo qaarkood sheegay in guddoomiye cusub ay doorteen halka guddoomiyihii horena arrintaasi uu ku tilmaamay mid sharci darro ah. markaa kadib ayaa madaxweynuhu wareegto uu soo saaray waxa uu ku amray in dhinacyadu aanay warbaahinta la hadli karin ilaa khilaafka go-aan laga gaadhayo. markaa kadib ayaa warqadani maanta ay soo baxday. sidoo kale warqadda kuma xusna xilliga ugu dambayn ay guddidan uu madaxweynuhu magacaabay warbixintooda ay ku soo celin doonaan madaxweynaha ama ay shaacin doonaan. ilaa iyo haatan marka xasanow dhinacyada guddigan doorashada ee somalilan wax wara uu ka soo baxay ogaalka? ilaa hadda labada dhinac ee guddida doorashooyinka somalilan ee ishaya ma jiro wax wara oo ka soo baxay oo ku taxalluqa go-aankan madaxweynuhu uu gaadhay oo ah in uu guddi baadhiseed oo madax bannaan uu sameeyo guddida doorashooyinka somalilan. aad buu mahadsan yahay xasan galayr oo hargeysa jooga. dhanka kale musharaxa madaxtinimada ee xisbiga waddan ee mucaaradka oo haatan saxaafadda kula hadlaya isla magaaladaasi hargeysa ayaa xeerka madaxweynaha waxa uu ku tilmaamay tallaabo wakhtiga uu ugu darsanayo. cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo daqiiqado ka hor ina siiyey waraysi gaara ayaa waxa uu sheegay in xitaa guddiga madaxweynuhu magacaabay ay hal xisbi uu ka soo xulay. xasan galayr ayaa isla bartaas shir jiraayad uu ka socdo oo kula kulmay oo goordhaweed waraysi wuxuuna weydiiyey marka hore bal waxaa shirkan jaraa'id ku saabsan yahay. shirkan jaraa'id nuxurkiisu waxaa inaan ka fal celiyo khudbaddii madaxweynaha shalay. sidaad ka warqabto madaxweynuhu shalay baarlamaanka hortiisa wuxuu ka jeediyey khudbad, waxaana axsaabta iyo shacbiga iyo daneeyaasha dhammaantood ay filayeen inuu si cad oon mugdi ku jirin uga hadlo arrimaha doorashooyinka. madaxweynuhu si cad mowqif cad iskama taagin arrimaha doorashooyinka. waxaanu malaawaaday inay dhici karto waxaan markaa oolin ama iman doona oo ay suurtagal tahay in doorashooyinka dib u dhigaan. marka malaawaalkiisii koowaad maantuu sameeyey oo aynu soo saaray dekreeto uu ku magacaabay guddi aan dhexdhexaad ahayn oo hal xisbiya. taa macnaheedu inuu yahay tallaabadii ugu horreysay lagu kala dirayey guddiga doorashooyinka qaranka oo imika diyaar u ahaa inay qabtaan diiwaangelintii bilaabaan. taa macnaheedu waxay yahay doorashoba inaanay dalka ka qabsoomi doonin haday tahay mid madaxweyne iyo mid kale toona. dee xeerarkii iyo arrimihii dastuuriga ahaa ee farayay madaxweynuhu in waajibkiisa guto maadaama uu ka mas-uul yahay doorashooyinka oo dhammaan uu laalay. taa macnaheedu waxa weye go-aanka ay ku gaadheen ama heshiiskii ay ku gaadheen axsaabta iyo madaxweynaha iyo commishanku timelinekii diiwaangelinta wuu laalay. marka arrimahaasi oo arrimo u horseedaya somalilan meel aan fiicnayn arrimahaasa kaga hadlayey. marka sidaynu ognahay guddida doorashooyinka waxaa soo kala dhex galay khilaaf laba garab u kala jebiyey. haddii uu madaxweynuhu u saaro guddi baadhiseed miyaanu xaq u lahayn oo dastuurku siinayo? dastuurku madaxweynaha wuu siinayaa, laakiin dee go-aanka commishanku isbeddelka dhexdoodu horena wuu dhacay ugu yaraan 3 jeer intaan xasuus tahay. madaxweyne farageliyeyna ma jiro. marka madaxweyne waxaanu aragnaa uun dee wixii commishanku xaq u lahaa inuu farageliyey oo taasi aanay ahayn arrintii uu xaqa u lahaa inaanay ahayn. yaa xaq u lahaa markaa musharax madaxweyne? commishanku dhexdooda inay isbeddel ka sameeyaan dee commishanka xeerkooda u ogol. marka madaxweynuhu horena umay dhicin. anigu waan dee joogay somaliland inta baarlamaanka joogay. guddoomiyihii ugu horreeyey waa la bedelay cali yuusuf, waxaa la bedelay kaba weyne, waxaa la bedelay xamari. maanay dhicin mar qura inaad farageliso. laakiin haddii uu khilaaf yimaado oo tusaale ahaan guddoomiyihii hore uu ku doodayo anaa guddoomiyihii rasmiga ahaaya qoladii dambana ay guddoomiye cusub magacaabatay, miyaanay ahayn in madaxweynuhu halkaasi guddi uu saaro si arrinta ay isku hayaan go-aan looga gaadho? waxay la tahay madaxweynuhu go-aan maamul weeye kan dhexdooda ahay. marka go-aankaa maamul inuu farageliye maaha. annagu guddoomiyihii horena dee waanu la shaqaynay oo saaxiib baanu lahay. kan imika la doortayna saaxiib baanu lanahay. xubintii laga dhigayo guddoomiye la saaxiib baanu lahay. waxyaabaha aad ka shakisan tihiin ee aad werwarka uga sii muujinaysaan guddidan maxay tahay? madaxweynuhu marmarsiyaha ugu weyne uu doorashada imika dee dib u dhigi karta waa inuu farageliyey commishanka, waa inuu shaqadii ka joojiyey, waa inay diiwaangelintii istaagtay, waa ina wax shaqoo jirin. taasaa annaga warwarka nagu haysa. haddii ay dhacdo oo guddidan la kala diro idinku go-aan noocee baad qaadanaysaa? guddida haddii la kala diro kolley axsaabtu dee tala isugu iman doontaa. waxaanu isku dayi doonaa tallaabo kasta oo dalka lagaga leexinayo doorasho
inaan ka hortagno. oo maxay ka mid yihiin tallaabooyin? In diiwaangelintii dhici weydo, in voter registration dhici waayo, in timelinekii uu burburo, kuwaasaa ka mid ah. waa tahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo ah musharaxa xisbiga wadani ee madaxtinimada ee somalilan oo u warramayay goorraweed xasan galeer. wixii wararkaasi ka soo koran idaacadaha eega dambe ayaad ka maqli doontaa. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. wararka doorashada ayaa maanta inugu badan ee guddiga baarlamaanka soomaaliya ee wada qabanqaabada doorashada madaxtinimada ee dalka ayaa daqiiqado kahor waxa uu shaaciyey in 39 musharax ay isu diiwaangeliyeen doorashadaasi. boggii isdiiwaangelintana uu sidaasi ku xirmay. doorashada madaxtinimada ee soomaaliya ayaa lagu wadaa in la qabto maalinta axadda ee soo aadan. dhanka kale wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa soo dhoweeyey qorshaha lagu gabagabeynayo doorashada madaxtinimada, taas oo soo jiitamaysay sanad iyo dheeraadkii lasoo dhaafay. xasan cali geelle ayaa faahfaahinta warkan halkan istuudiyaha kala socday oo haatan istuudiga ula soo biiray. xasan oo bal maxaa ugu dambeeyey? cabdi fataax ku dhowaad saacad ka hor ayaa lasoo gabagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha soomaaliya 4 sano ee soo socota. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa socotay muddo 3 maalmood ah, waxaana galabta lagu soo xiray 39 musharax sida uu BBC da u xaqiijiyey xildhibaan maxamed ibraahim nuur macallim oo ka tirsan guddiga baarlamaanka ee qabanqaabinaya doorashada madaxweynaha ee soomaaliya ee la filayo axadda soo socota inay ka dhacdo magaalada muqdisho. waa tiradii ugu badnayd ee isu soo taagta ama u tartamaysa xilka madaxweynenimada soomaaliya ee isdiiwaan gelisa, iyadoo sanadkii hore ay isdiiwaan geliyeen musharaxiin gaaraya 24 musharax. musharaxiintan haatan isu diiwaan geliyey dabcan shuruudo badan ayay soo mareen. ballantuna waxa ay tahay 15 bishan oo ah axadda soo socota oo ah maalinta teendhada afisyoone ee magaalada muqdisho ay ka dhici doonto doorashada madaxweynaha soomaaliya oo in ka badan sanad dhaaftay muddadii ay ahayd inay ku qabsoonto. shalay ayuu guddiga qabanqaabada ee doorashada madaxweynaha soo saaray habraacyo lagu qeexayo qaabka ay tahay in doorashada u dhacdo iyo maalintaasi waxa ka dhacaya ee goobta madaxweynaha lagu dooranayo laga bilaabo berri oo arbacaha iyo maalinta xigta oo khamiista ah. musharaxiintu waxa ay fursad loo siinayaa inay labada gole ay baarlamaanka soomaaliya ka horjeediyaan khudbadahooda kasbashada codka xildhibaanada codka u qaadi doona. musharax kastana waxaa la siinayaa dhowr iyo 10 daqiiqo qiyaastii oo ah aragtidooda ay siyaasadeed ku soo jeedinayaan, waana waqti siman oo loo qeybinayo musharaxiintaasi. 15 bishana oo axadda ah ayaa maalinta loo madlan yahay in la kala ogaado qofka hogaamin doona soomaaliya 4 sano ee soo socota. xasanow 39 musharax aad u badan yihiin, intooda badan soo la yaqaan, laakiin bal waxaad na xasuusisaa magacyada ugu waaweyn ee ku jira liiskaasi. cabdi fataax sidaa sheegtay inta badan musharaxiintani waa dad la wada yaqaan oo dhagaha soomaalida kuma cusba magacyadooda, inkastoo ay jiraan kuwa aan horay ay soomaalida usii aqoonin ama aysan ugu baran inay tartamaan. 39kan musharax haatan isu diiwaangeliyey doorashada madaxweynaha soomaaliya waxaa ka mid ah oo laga xusi karaa madaxweynaha haatan xilka haya maxamed cabdulaahi farmaajo, madaxweynihii kaga sii horeeyey xilka ku wareejiyay xasan sheekh maxamuud, shariif sheekh axmed oo isna kasii horeeyey madaxweyne xasan sheekh, xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya, taabit oo ah duqii hore ee caasimadda muqdisho, madaxweynaha haatan puntland saciid cabdulaahi deni. waxaa kaloo ka mid ah cabdikariin guuleed oo ahaan jiray madaxweynihii hore ee galmudug, axmed ducaale geelle xaaf oo isna galmudug madaxweyne ka soo noqday. sidoo kale dadkan tartamaya haatan u muuqda inay siyaasadda ku cusub yihiin waxaa ka mid ah xasan bariise oo ahaan jiray wariye ka tirsan BBC da. sidoo kale waxaa tartamaya oo caanka ka mid ah ama dadka caanka ka mid ah fawzi yuusuf, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya xilligii dowladdii xasan sheekh, waana cabdi fataax gabadha keliya ee isu diiwaan gelisay inay u tartanto xilka ugu sarreeya soomaaliya doorashada la dhacaysa axadda soo socota. waata xasanow dabcan waan kugu soo laaban doonaa. haatanna waxaa laleeyahay warqad baa soo baxday oo atmis ka soo baxday, balse marka hore beesha caalamka iyana warbay soo saareen. mar hore warkaasi ay soo saareen waxay ku taageereen doorashada iyo qaabkay u soconayso, bal middan ka hormar beesha caalamka warkay soo saareen. cabdi fataax war-saxaafadeed maanta ka soo baxay wakiilada beesha caalamka ayaa lagu sheegay in saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya ay soo dhoweynayaan kordhaaqista guddiga qabanqaabada baarlamaanka ee ah in doorashada madaxweynaha ay dhici doonto baa layidhi maalinta axadda ah ee 15 bishan maaj sanadkan
waxaana dhiirigelinaynaa bay yidhaahdeen horumarka wanaagsan ee laga gaaray diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo diyaargarowga kale ee loogu jiro inaan laga dibdhicin wakhtiga kama dambaystaha ee doorashada ay dhacayso. waxa ay sheegeen inaysan jirin wax marmarsiyaha oo ku saabsan ama sabab u noqon kara idhaahdee in dib u dhac kale oo dheeraada uu ku yimaado maadaama labada aqal xildhibaanadoodii la dhaariyey oo haatanna si buuxda ay u shaqaynayaan. waa tahay weliba xildhibaanadaasi maalinta beritaa iyo maalinta xigta ayay soo jeedin doonaan musharaxiintaasi khudbadahooda ay ku doonayaan in loogu codeeyo. haatanse geellow warba deg deg ayna soo gaaray oo ka soo baxay midowda afrika howlgalkiisa magaalada muqdisho iyo soomaaliya gaar ahaan ee atmis. warkaas muxuu sheegaya nuxurkiisa? cabdifataax war-saxaafeed ka soo baxay howlgalka kala guurka midowda afrika ee soomaaliya ee atmis ayaa lagu sheegay in bandow aan dhihi karno lagu soo rogayo xerada xalane oo dabcan qayb ahaan ay ka dhacayso doorashadaasi maalinta ay doorashada dhacayso ama dabcan laga bilaabo sida ay sheegeen 10 ilaa iyo 6 iyo 10 oo ah maalin kadib maalinta ay doorashada dhacayso. 10 dabcan waa maanta ilaa iyo isniinta dambe oo 10 ah. marka waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah in xerada dhexdeeda ay dhigi doonaan goobo dadka lagu baaro. waxaa kaloo la xayirayaa in dadku ay xeebta oo kale ay tagaan, dadka degan kaliya ayaa loo ogolyahay waana saacado go'an. waxaana jirta in la xayirayo ama la yaraynayo dhaqdhaqaaqyada meesha hangarka afisyoone oo dabcan ay doorashada ay ka dhici doonto. aad baad u mahadsantahay xasan cali gelayo kaasi ah faafahinta wararkaasi isuwan inala socodsiinaya. isla doorashada ayaynu ku guda jirnay guddiga baarlamaanka Soomaaliya ee qabanqaabanaya doorashadaasi madaxtinimada ayaa ku adkaystay in ciidamada qaranka ay qayb ka yihiin ciidamada sugaya ammaanka doorashadaasi. guddigan oo shalay gelinkii dambe soo saaray habraaci amniga ee doorashada ayaa sheegay in amniga teendhada ay doorashada ka dhacayso ay gebi ahaanba ku wareejiyeen howlgalka midowda afrika ee atmis oo haatan aad maqlayseen in bayaankaasi ay soo saareen. haddaba xildhibaan maxamed ibraahim nuur mucalimu waxa uu ka mid yahay guddigaasi. waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliya loo xilsaaray ilaalinta wadooyinka ee magaalada muqdisho xilliga doorashada ay socoto. khadka telefoonka ayuu goorsii horreysay ugu warramay. sidaad ogtahayba waxaa maalinta beri bilaabanaya hadal jeedintii murashaxiinta isu soo sharaxay madaxtinimada Soomaaliya oo ah in ka badan 30 murashax. marka waxaa la rajaynayaa in hawshaas ay bilaabato maalinta beri. sidaa darteed waxaa aad loo adkeeyay amniga iyo guud ahaan anshaxa looga shaqaynayo teendhada afisyoone ee meesha ay khudbooyinka ay ka dhacayaan iyo meesha ay doorashadu ka dhici doonto 15. marka waxay tahay in aanay dhicin isku dhex daadsanaan taasoo aan waay aragnimadii aan ka dhaxalnay ahayd doorashadii guddoonka. marka wax walba waa la hagaajiyey, sidii amniga ayaa la hagaajiyey, protocolkii iyo nidaamkii oo dhan ayaa la hagaajiyey. marka waxaa la rabaa in nidaamka la raaco, nidaamkaas ayaana la soo saaray. amniga teendhada ee doorashada ka dhacaysa gebi ahaanba waxaad ku wareejiseen atmis. halkaan ognahay doorashadii middan ka horreysay 5 sannadood ka hor iyo xoogaa weliba in ciidamada Soomaalida ay ammaanka hayeen. marka maxaa Soomaalida uga cabsanaysaa? amniga doorashada waxaan ka hadlaynaa agagaarka meesha ay doorashada ka dhacaysa teendhada. waxaana wada jooga tiro cayiman oo ciidamadii Soomaaliya oo booliiskii Soomaaliya ka mid ah oo awalba maaragtay waa kuwa had iyo jeer jooga ee gudaha soo gala. waxaana geesaha ama daafaha ilaalinaya ciidamada AMISOM amniga maaragtay guud ahaan iyaga mas'uulka ah dhinacaas. sidoo kale ciidamada ammaanku ee Soomaaliya shaqo weyn oo muhiim ah ayay hayaan. waxay ka shaqaynayaan guud ahaan wadooyinka iyo meel walba oo soo gasha iyo guud ahaan wadooyinka caasimadda. marka shaqo kale oo muhiim ah oo taa ka ballaaran ayaa u taala. waxaana jirta wada shaqayn u dhaxaysa. marka si aanan isku halayn amniga uusan u dhicin kaliya ayaa maaragtay la yiri ha loo wareejiyo qaybta agagaarka teendhada ay doorashadu ka dhacayso. laakiin gudaha laguma aaminayo miya? gudaha ciidamadu way joogaan, ciidamada booliis aana ka shaqaynaya oo inkastoo nambarkooda uu xadidan yahay. sababtana loo yeelanaya waxay tahay waa anshaxa iyo protocolka ee ma aha qoonsaraan kale oo gaara. dadka qaar waxay leeyihiin haddii atmis lagu wareejiyo ammaanka teendhada ay doorashada ka dhacayso ciidamadii Soomaalida ee waajibkeedu u ahaa inay arrimahaas oo kale ay u dhundulolaan oo ay gacanta hayaan waa laga wareejiyey. marka soo taa ma keenayso kalsooni darro? walaalow ciidamadan AMIS la yiraahdo ama ciidamada AMISOM la dhihi jiray waa kuwa ilaaliya guud ahaan wadankan, madaxtooyada ilaaliyaan, aqalada baarlamaanka ilaaliyaan, garoonka iyo airportka ilaaliyaan. marka haddii ay doorashada ilaaliyaan wax dhib oo hadda ku jira ma laha. ujeedkuna waxay tahay in guud ahaan murashaxiintu ay u sinaato. waxaa dhici karta murashaxiinta qaar baa dowladii hadda ka tirsan oo maaragtay dowladda oo madaxdii ah, qaar baa kuwii hore ah, qaar baan weligood madax noqon. marka waxaasoo dhan waxay tahay in murashaxiintu ay sinaadaan oo maaragtay
amnigu ay u sinaadaan ujeedkuna intaas weeye wax kaloo hadda dhiba jira ma jiraan. laakiin macallimiyow qofka madaxweynaha noqonaya soo ma ahan ciidamadii uu ku tirsanaan doono oo hadhow ay hoos iman doonaan marka soo taa ma abuuri karta madmadow ah? maya haba yaraatee ma jirto. ciidamada Soomaalidu waa kuwa ugu xoog badan ee shaqaynaya, waa xooga kaliya la isku halaynayo, waa kuwa ka shaqaynaya meel walba. marka wax dhibaata oo ciidamadu ay qabaanna ma jirto. waa lala kulmay, saraakiishoodu way og yihiin, way ku faraxsan yihiin. ujeedkuna waxa ay tahay in dalkan si nidaama doorashadaas ugu dhacdo. saraakiishuna runtii ayagaaba maaragtay hormuudka sidii loo hagaajin lahaa amniga. ay mas'uul ka yihiin guud ahaan militariga shaqaynaya oo daafaha caasimada iyo gudaha qaybo ka mid ah ka shaqaynaya, booliiskii baa shaqaynaya, ciidamadii nabad sugidda shaqaynaya. waa shaqo howleed wada jira ma aha mid gaara. marka ma aha in maaragtay si qaldan loo arkay, laakiin waxay tahay in la arko guud ahaan wanaagga la doonayo. ka sukow ciidamada ammaanka waxaa jirtay in habraacyadiin aad ku darteen in saxaafadda aad u diyaariseen howl u gaara oo shaashaday yaalaan oo halkaas ay warar ka tebin doonaan. maxaa keenay baahida noocaasa? walaalow warbaahintu warbaahintu waxaa loo ogolaan doonaa inay gudaha gasho. waxaa loo sameeyey live streaming ama maaragtay muuqaalo dalka iyo dibadda ay dadku la socon karaan oo free ah oo weliba tayadoodu ay aad u sarrayso. wariyaal badanna way tegi doonaan, laakiin haddee ma aha sidii kal hore dhacday oo kale qof walba inta soo qaato mobile ayuu sanka dadka ka gelinaya. taasna lama aqbalayo. nidaamka dadku ay u hoggaansamayaan oo protocolka loo hoggaansamaya ayay warbaahintuna qayb ka noqon doontaa. marka cid gaara oo la riixayo ma jirtaa. qof walbana shaqadiisu u qabsanaya. marka wariyaasha gudaha geli doonaan, sawirro way qaadan doonaan, wariyaashu way gelayaan, sawiray qaadanayaan, shaqadooday qabsanayaan. marka loo baahdo haddii la yidhaahdo maaragtay dibadda tagana way tegayaan. hawl kasta oo markaas muhiim ah oo nidaamka iyo dadka guddiga ka shaqaynaya ay soo jeediyaan waa inay raacaan sida dadka kaleba ay u raacayaan. laakiin wariyaasha waa kuwii soo tabin lahaa haddii meesha gudaheeda musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ay jiraan. haddii marka bannaanka la geeyaa soo tabinaya. waxaa la diyaariyey lives kala duwan oo dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan gurigooda ay ka daawan karaan oo ay kala socon karaan oo weliba maaragtay madax bannaan. marka uma baahnaba maaragtay in wariyaal inta mobile ay qaataan ay dadka hortiisa iyo meeshii oo dhan ay saxmad ka dhigaan. waana ogtahay waxa mar walba dhaca. marka taasi iskuma eedayno, laakiin waxaan rabnaa kaliya in nidaamku uu hagaagsanaado. warbaahintuna qayb ayay ka tahay inay meesha joogto. marka wax dhib oo jira ma laha. warbaahintana way og tahay oo nidaamkan waa nidaam guud oo amniga la xiriiro oo loo hoggaansamayo. kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed ibraahim nuur mucalimo oo khadka taleefanka ugu warramay. wuxuu ka tirsan yahay guddigaasi wada qabanqaabada doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya ee lagu wada maalinta xadda in halkaasi lagu qabto. haddaba qaar ka mid ah dhegeystayaasheena Facebook ayaa ra'yigooda halkan kaga soo dhiibtay. midii labaan soo qabtay maxamed qare oo jooga magaalada Muqdisho. wuxuu leeyahay guddiga baarlamaanka Soomaaliya ee doorashada madaxtinimada ay ku adkaystay in ciidamada qaranka ay qayb ka yihiin ciidamada sugaya ammaanka doorashadaasi. waan soo dhaweynayaa, waana mid ay ku saxan yihiin go'aankaasi, waayo ciidamada Soomaaliya waxay qayb ka mid ah tahay shaqadooda inay ammaanka doorashada sugaan. maxamed shaafi sheekh xasan oo boorama ka soo qorayna waxauu leeyahay guddiga baarlamaanka ee Soomaaliya ee doorashada madaxtinimada ay ku adkaystay in ciidamada qaranka ay qayb ka yihiin ciidamada sugaya ammaanka doorashadaasi. waan soo dhaweynayaa, waayo ma jirto wax ka hor istaagi karaa maadaama ciidamadu ay astaanta qaranka Soomaaliyeed iyagu yihiin. waxaan qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC ee Facebook. saacaduna haatan waxa ay dul taagan tahay 5 galabnimo iyo 27 daqiiqadood iyo 35 ilbiriqsi waqtiga bariga Afrika. markana sida warka caalamka aad ku maqlayseen, dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ugu yaraan 100 qof oo rayida ay weli ku nool yihiin dhuldhaca hoose ee warshada Azovstal ee birta farsamaysa ee magaalada Mariupol ee wadankaasi, taas oo weerar culus ay ku hayaan ciidamada wadanka Ruushka. in ka badan 1,000 askari oo reer Ukraine ayaa iyana goobtaasi weli ku sugan. ciidamada Ruushka ay weerar soo qaadayna waxa ay guulaan sidaas u badnayn ka gaareen Donbas, waa bariga wadankaasi Ukraine, halkaas oo la sheegaya in deegaanada kalena ay dhibaato culus kala kulmayaan. waa dhinaca waqooyiga Ukraine, halkaas oo weerar celisa iyo dagaallo culus ay halkaas ka soconayaan. faafahinta warkan waxay noo haysaa Samiir Cabdullaahi Jaamac. waxaa mar kale weerar culus uu ka socdaa aagga warshada birta samaysa ee Azovstal ee ku taala Mariupol, halkaas oo toddobaadkii lasoo dhaafay laga saaray dad rayid ah. shaqaalaha warshada ee ku sugan gudaha warshada ee dagaalamaya ayaa sii wada inay difaacaan magaalada aadka u burburtay, islamarkaasina ah goobaha ugu dambeeya ee militariga Ruushku ay dagaalka ka wadaan. militariga Ruushka ee duulaanka soo qaaday ayaa sheegay
sheegay in ay sii wadi doonaan weerarada joogtada ah ee ay ku birtilmaameedsanayaan warshada birta. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu weerar gantaalo ah ka fuliyay habeenkii dekada badda madow ee Odessa. hal qof ayaa la sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay kadib markii gantaal lala eegtay goob laga raro maraakiibta, waxaana ka dhashay dab saacado ololayay. afhayeenka howlgallada koonfurta Ukraine Natalia Hamanuk ayaa faahfaahinaysa weerarka. weerar kale oo gantaalo ah ayaa lagu qaaday Odessa. markan 7 gantaal ayaa la soo riday, laakiinse waxay noola muuqataa inay yihiin gantaalo mar hore la iska daayay isticmaalkooda oo aan filayo in la sameeyay xilligii Sovietka. waxay u badan tahay in cadowga ay rasaastii ka dhamaatay. dhisme ay dad rayid ah ku jireen oo ku yaala meel ka fog goobaha militariga ayaa la duqeeyay. xarun laga dukaamaysto iyo bakhaar ayaa iyagana la duqeeyay. wasiirka arrimaha dibadda dalka Jarmalka Annalena Baerbock ayaa booqasho aan la shaacin ku tagtay dalka Ukraine, waxaana ay noqonaysaa mas-uulkii ugu sarreeyay ee Jarmal ah oo soo gaara dalka Ukraine tan iyo duulaankii Ruushka ee soo bilowmay 24 Febraayo. Baerbock ayaa kulamo la qaadatay dadka deegaanka ee Bocha, halkaas oo ciidamada Ruushka lagu eedeeyay in ay ka geysteen dambiyo dagaal, waxaana ay haatan magaaladaas oo u dhow caasimadda Kiev noqonaysaa goob ay soo booqanayaan diblomaasiyiin iyo hogaamiyeyaal. samiir cabdullaahi jaamacaad bay u mahadsan tahay warbixintaas ayayna la socodsiinaysay. haatanna saacaddu waxay dul taagan tahay 5:30 daqiiqadood iyo 5:30 ilbiriqsi waqtiga bariga Afrika. xilligan oo kale waxaanu idiin soo gudbinaa wararka caalamka qodobadii ugu door korona. Kawthar Maxamed Cabdullaahi aad la diyaar. qoyska Marcos, hogaamiyihii hore ee kaliya-taliska ahaa ee Philippines, ayaa dib ugu soo laabtay xukunka kadib markii uu doorashada madaxtinimo ee waddankaasi ku guulaystay wiil oo dhalay oo lagu magacaabo Ferdinand Marcos. aabbaha dhalay ninkan ee guushu raacday ayaa lagu qasbay inuu xukunka ka dego sanadkii 1986 kadib markii ay dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo lagu soo horjeedo xukunkiisa kaliya-taliska ahaa. waxa uu helay 2 jibaar codadkii uu helay musharaxii la tartamayay. dibadbaxayaal ka soo horjeeda dowladda Sri Lanka ayaa isugu soo baxay banaanka hore ee saldhig military kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inay halkaasi ku gabanayeen ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaas Mahinda Rajapaksa iyo xubno kale oo ka tirsan qoyskiisa. muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dibadbaxayaal careysan oo ku sugan saldhigga aadka loo ilaaliyo oo ku taala dhanka waqooyi bari ee dalkaas, kuwaas oo ku dhawaaqaya erayo ay ka mid yihiin madaxweynaha ha iscasilo. Ukraine ayaa sheegtay in ugu yaraan 100 qof oo rayid ah ay weli ku xaniban yihiin qaybta hoose ee warshada farsamaysa birta ee Azovstal oo ku taala magaalada Mariupol, taasoo weerar xooggan ugu imanayo ciidamada Ruushka. waxaa sidoo kale goobtaasi ku sugan in ka badan 1,000 askari oo ka tirsan ciidamada Ukraine. ciidamada Ruushka ee duulaanka soo qaaday ayaa qabsaday qaybo yar oo ka mid ah gobolka Donbas ee bariga dalkaasi, balse ciidamada Ukraine ayaa iska caabiyay weerarka Ruushka. garsoorayaasha Iiraan ayaa ku adkaystay in la fulin doono xukun dil ah oo lagu soo rogay nin haysta 2 dhalasho oo Sweden iyo Iiraan ah. Ahmed Reza Jalali ayaa ahaa cilmi baare caafimaad oo ku sugan Stockholm markii lagu xiray Iiraan sanadkii 2016, xilligaas oo sidoo kale lagu eedeeyay inuu u basaasay Israa'iil. toddobaadkii hore warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in xukunka dilka la fulin doono dabayaaqada bishan. 10 haween ah ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaalada Kaabul ee caasimadda Afghanistan, kaas oo ay uga soo horjeedaan go'aanka Taliban ee ah in haweenka ay ku qasban yihiin xirashada dhar jirkooda oo dhan daboolaya marka ay ku sugan yihiin goobaha ay dadweynaha isugu yimaadaan. ugu dambeynna ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay weerar ay koox falaaga ah ka fuliyeen waqooyi bari ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. dadka ku nool magaalada Juju ayaa sheegay inay tuhmayaan 2 kooxood oo Maleeshiya ah in ay bartilmaameedsadeen xeradaasi ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah. waxay sheegeen in dabanayaasha weerarkaasi ay u badnaayeen caruur oo dilkooda loo adeegsaday baangado. Kawthar Maxamed Cabdullaahi aad bay u mahadsan tahay wararka caalamka qodobadii ugu door korona ayay nala socodsiinaysay. halkaad kala socotaanna waa BBC, barnaamijkuna waa barnaamijkii dunida iyo maanta. warbixinada kale inoo soo socda waxaa ka mid a
muddo dadka lagu dul noolaa markii dambe buural baan uri iyo waxbaan guranay buural baan dhisanay banaankaasaan degnay dee barbardhig maalinkii horaan ka fiicnayn oo dad hantidiisa u xaraysan tahay oo ruuxii ehelo noo imaado xoolo siin oo u qali oo caanaha ka maali oo ka safran baan hayn waa qaar ka mid ah dad 10 kun gaaraya oo ka barakacay abaarta sanadkan ku dhufatay deegaanada Soomaalida gaar ahaan deegaanka Soomaalida ee wadanka Itoobiya faafahinta warkaasi goordhow ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaan dib ugu laaban doonaa wararka la xiriira doorashada Soomaaliya hase yeeshee markan wararka imanaya degmada Taleex ayaa sheegaya in roob aanan badnayn balse watay dabayl xooggan oo khasaare weyn ka geystay magaalada dabayshan ayaa weerarku waxay sheegayaan inay burburisay dhismooyin isugu jira deegaan iyo ganacsiba iyadoo inta badan dhismayaashaasina ay jingadii kala tagtay dabaysha waxaase la sheegay in dabayshu ay dhaawacday hal qof haddaba maxamuud cabdi cali warsame waa gudoomiyaha degmada Taleex ee maamulka Puntland khadka taleefanka ayaan kula xiriiray waxaan marka hore weydiiyey sidee wax u dhaceen roob aan koonayaasha jirin laakiin inta magaalada iyo inta ku dhow helay baa jiray roobkaasina dabayl buu watay duufaana dabayshaasi magaalada aad bay wax u yeeshay guryo badanina waa dumeen guryo badanina wixii yiilay waa qoyeen oo biyihii iyo dabayshii baa wax yeeshay oo de guri baa darkaysa saqafkii iyo dushii iyo jiingadu markay guriga ka duushaday roobkii wuxuu ku daayaa wixii hoos yid meeshii sandaqada haydo ama meelihii bacdayaasha sandaqadiiba waa qaaday iyo wixii jirayba marka waxyeelo hantiyeed baa gaadhay magaalada Taleex waxyeeladaas intee la eg tahay marka horta ma aanan qiimayno ma ururin laakiin kolay waa hanti aad u fara badan qiyaasta marka la qiimeeyo ilaa $500,000 bay tagaysaa dadka ay dhibaatada soo gaartay ilaa hadda waxaad u qabateen waxaan u qaban karnaa waa iska yar yihiin ama waxqabadkeedu meesha hay'adana ma joogaan dawladuna de kama howlgasho oo meelaha madaxdu joogtaa markiiba markaas wax laga galaa dadka shacabka ahi tamartii ay isku dhaandhaabeen ninkii markaa qorax fadhiyey oo gurigu jiingada ka qaaday dee in jiingadii bal wax lala abaabulo oo jiingadii loo saaro oo bakaaray wax laga amaahdo oo bal marka hore aanu sinaano bal qofka qoraxda ama roobka laga dado kii isagu sandaqad lahaa oo sandaqadiisiiba duushay taas hawl badan bay rabtaa oo waxay u baahan tahay jiingada waxay rabtaa qalab kale isna hareeraha laga qoriyo iyo agab badan bay u baahan tahay dadkaasi wali wasad ban fadhi adigu guri aan badnayn baa waxaa la saaray jiingad burburka haatan magaalada soo gaaray ma meel gaar oo ku egyahay mise magaalada dhan wuu camimay magaalada dhan ku egyahay magaalada de guriya bad qabaana waa jiraan laakiin laba guriya dhinacaas ku haya midna dumay midna bad qaba dabayshan roobka la socday ma isna daadadii wax ma geystay mise dabayshan baa xoog badnayd roobku daad weyn oo biyo qaado oo dhul kale uma gudbin laakiin meeshii ay dabayshu ka qaaday saqafka biyaha galay biyahaasina wixii yiilay waxbay yeeleen oo waa laga qaateen qaabkaas unbu ah suuqii magaalada sidee u saameysay arrintan aad bay u saameysay maxaysataa baa jiray dad sandaqada ku jiray baa jiray dad meherada yaryar iyo wax iska haystay baa jiray oo dee intaa nolol maalmeedka raadin jiray shaah karsan jiray makhaada shidan jiray baa jiray heer walba way gaadhay qof kasta oo ka midaba way saamaysay waayo laba qof oo dhinac isku haya mid wax gaadheen kii kalena waa la qabaa oo mar haddii isagu wixii dhinac yaalin waxna ma kala lahaa laakiin wuu la qabaayo dee waa daana wada gaadhay laakiin aad bay wax u gaadheen dadka shacabka wax digniina oo aad hesheen ka hor intaanay dabeesha halkaas soo gaarin horta digniin markii la bixinayo ilaahay unbaa digniin bixin kara oo systemkaas oo kale wax ka oge qof bini aadan waxba kama oga marka dabayl guuraysay oo intay qaarada soo martay meesha iska soo guuraysay ma ahayn oo iska soconaysay systemka hadda waqti 2 bilood ka horeysay ama 3 bilood ka horeysay waa laga yaabaa bay yiraahdeen qolada saadaasha wadu roobab dabayl wataa inay Soomaaliya ka da'aan laakiin meel ma ay sheegin inay dabayl soconaysay oo dabaylahan socdo qaarada u gudba ma ahayn dabayl waxay ahayd la timi roobka la socotay xilligii roobka intii roobka ku eekay marka wax digniin ah ka horeysay aan haynin sidan oo kale hore ma uga dhici jirtay magaalada laba goor hore ka dhacday laba goor hore maxaa diyaar garow aad samayseen marka wax diyaar garow ma aan sameeyno dabeecadda deegaanka uu bayahay cidina wax ka bedelan ma sameyn mana sameyn karin ba oo de ninkii qol guri dhisana gurigiisu jiingadaas u saartaa guriga shumaa wax diyaar garow la sameeyay ma jirin oo aska laakiin dabeeciyo joogta ma ahayn sidii mar dhacay baa laakiin maadaama hore u aragteen tan oo kale soo ma wanaagsanayn inaad ka taxadirtaan oo dadka aad wacyigelisaan oo loo diyaar garoobo dhibaato noocan oo kale duruufaha jira maanta qofku ma wacyigeli karo waayo duruufta waxa weeye gurigana shub ka dhigi maysid qofku dhaqaalo shub ku samaysto ma haysto daar shub ka dhigi maysid qofkii sandaqad ku jiraan hantiga guriga weyn oo dhagaxa ku dhisto oo isaguna ku dhisto male waa duruufahan ku ogolaanayno haatan maadaama dhibaatadu ay intaa gaarsiisan tahay qorshihiina muxuu yahay ayagu anagu wuxuu yahay ilaahun baanu tuugaynaa inuu dadka badbaadiyo cid waa la hadalay laakiin cid aanu la hadalay wax emergency oo soo gaarayna ma jiraan haddana wax noo diyaarsan oo aan ognahay ma jirto ilaahay un baanu iska baryaynaa inuu ummadda ilaahay badbaadiyo oo
kaasi waxa uu ahaa maxamuud cali warsame gudoomiyaha degmada taleex ee maamulka puntland oo khadka taleefanka igu warramaya markana sidaan idiin ballan qaadnay aan dib ugu laabanno doorashada soomaaliya ee haatan gabagabada ku dhow taasoo qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee lagu wada in la qabto 15 bishan may maalinta axadda ay soo aadan 39 musharax ayaa la xaqiijiyey inay isu diiwaangeliyeen inay u tartamaan xilka ugu sarreeya soomaaliya haddaba cabdikariin xuseen guuleed hore wuxuu soo noqday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug xilal wasiirnimona waxuu ka soo qabtay dowladda federaalka haatanna waxauu madax ka yahay xisbiga sahan waxa uu ka mid yahay musharaxiintaas diiwaan gelisay ee xilka u taagan cabdikariin waxa uu u warramay tifitiraha laanta afka soomaaliga ee b b c da muxiidiin axmed rooble oo ugu horreyn weydiiyey waxa uu doonayay inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya walaal waa mahadsan tahay waxaan u doonaya xilkaasi waxay tahay kadib markii aan arkay in laga soo bilaabo markii dowladda Soomaaliya dib loo soo bilaabay 2000 dowladihii iyo maaragtay madaxdii xilliga jiray ee dhamaantood lagu guuleysan waayay arrimo waaweyn oo maaragtay dowladda Soomaaliya muhiim u ah oo ay kamid tahay arinta dhameystirka dastuurka arrimaha federalismka arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo nabadeynta guud ee dalka arrimahaas oo dhan markii ishiida qaran ee waaweyn lagu guuleysan ayaan waxaan is-iri arrimahaas ayaga iyo gaabkaas asaga ah adiga ayaa buuxin kara arrimahaas ayaa igu kalifay inaan u istaago waayahay madana cabdikariin maxaad doonaysaa oo inoo sheegaysaa inaad uga duwan tahay dadkaas kale oo aad uga mudan tahay anigu waxaan isleeyahay musharaxiinta kale walaalahay oo saaxiibada waxaad uga duwan tahay ogaalnimo dhinacii bulshada oo 30 sano ku dhawaad aan ka soo shaqeeyay iyo anigoo dhinaca kalena ka soo shaqeeyay dhinacii dawladda gaar ahaan qaybihii ugu muhiimsanaa haddii ahaan lahayn kuwa amniga haddii ahaan lahayn kuwii dowladda dhexe iyo siyaasadaheedii haddii aan lahayn dowlad goboleedyadii intaba ka soo shaqeeyay waxaan isleeyahay marka khibrad iyo xoogaalnimo dheeri ah oo dadka kaleeto aad ka dheer tahay ayaad leedahay isleeyahay waayahay cabdikariin oo marka sidaynu ognahay wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha aad soo noqotay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waad noqotay galmudug waad iska casishay wasiirka amnigana waa iska casishay labadaba meelaha ku faanayso oo aad maaragtay waan ka soo shaqeeyo xogogaala u ahayna waad leedahay marka duruufihii bariga keenay inaad go'aamada nooca qaadatid maxaa iska bedelay duruufaha aan labada xilba isaga casilay duruufo islehma aysan ahayn galmudug arrimo caafimaad ayaan isaga casilay oo aan igu yimid arrimahaas caafimaad oo qasbayay inaanan xilka sii hayn karin laakiin hadda alxamdulillah rabbil caalamiin caafimaadkayga waa fit arrinta wasiirka amniga ka tagistii anay xilka aan ka tagay waxay ahayd anoo dareen mas'uuliyadeed qaadaya ayaan qarax dhacay oo ka dhacay xarunta baarlamaanka eeriyadeeda ayaan isku casilay waxaan aaminsanahay inay ahayd dareen mas'uuliyadeed oo aan muujiyay marka haddii ay dhacdo in lagu doorto ama hadda oo aad olaha ku jirtidba sidee doonaysaa marka amniga oo ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee baahidu muddo dheer loo qabay inaad wax uga qaban karaysa waxyaabaha walaal igu kalifayaba inaan soo istaago waxa ugu horeeya koow inaan ciidan qaran oo muuqaal qaran leh oo dhammaan deegaanada dalka Soomaaliyeed oo dhan laga soo wada qoray laguna soo qoray talo iyo tashi ummadda Soomaaliyeed ee wada leedahay gaar ahaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay wadaagayaan in la diyaariyo ciidamada AMISOM oo muddo dheer dalka joogayna looga kaaftoomi lahaa oo xilka ciidanka qaranka Soomaaliya la dhisay oo la wareegi lahaa waxa intaas dhinac socda dib u heshiisiin aan la'aanteed amnigu uusan hagaagi karin in lagu dhinac wado cabdikariino al-shabaab adoo wasiirka arrimaha gudaha ah adoo wasiirka amniga ah iyo adoo madaxweynaha galmudug ah labadaba way jireen inta ciidan iyo xoogba waa lagu dayay wuuna shaqay kari waayay marka jid kale oo aan ahayn ciidan iyo xoog oo xal looga gaari karayo arrinka al-shabaab oo dawal loogu heli karayo ma ku muuqda walaal anigu waxaan aaminsanahay inaan si dhab ah wali loola diririn hogaanka ugu sareeya dalkana runtii go'aankii iyo taladii iyo fikirkii la rabay in al-shabaab lagula diriro wali aan lala imaanin aniguna maadaama aan hogaanka dalka ugu sareeya wali aan noqon waxaan aaminsanahay haddaan positionkaas jooga inaan go'aano badan oo nimankaas lagula diriro aan soo kordhin karaan aaminsanahay aragtideedii fikirkeedana waa qabaa waxaan rajaynayaa aanan kana shaqayn doonaa inuu istaagi doonaa inaan isfaham lagu dhammaystiro hanaanka dowladnimada ee qabyada ah sida dastuurka sida maqaamka muqdisho sida federalismka waxa ka dhiman inaan keeno oo dowlad dhexe iyo dowlad goboleed boqolkiiba boqol wada shaqaynaya isna wata inaan la imaado aan shaqayn doonaa arrinka maqaamka muqdisho ee aad soo hadal qaaday muddo dheer dood taagan waaye ilaa xilligaad wasiirka ahayd maxaa ka aaminsan tahay maxaa xal ah oo aad u haysaa طبعا muqdisho waa caasimadii Soomaaliya laba mushkiladood ayaa haysta mushkiladii waxay tahay dadka muqdisho degan sida muwaadiniinta Soomaaliyeed waxay rabaan inay matalaad yeeshaan dhinaca kalena dadka Soomaaliyeed ee muqdisho banaankeeda ah ama gobolada iyo deegaanada
deegaanada kala degan iyo muwaadiniinta Soomaaliyeedba waxay rabaan Muqdisho inay noqoto caasimadoodii inay noqoto magaalo aan la kala lahayn oo cid gaar isku xijinaysa ay si jirin xuquuqdoodii iyo xaq guud oo caasimadnimo ay ku leeyihiin inay ka helaan anigu marka waxaan ka shaqeyn doonaa wax labadaas mushkiladood wada xalin doono isla xalin doona oo ay Muqdisho ku noqon karto caasimadii Soomaaliya qof kasta oo Soomaaliya xaq iyo xuquuq uu ku yeelan karo dhinaca kalena dadka reer Muqdisho ay matalaatoodii muwaadiniinta Soomaaliyeed ay haystaan ama ay leeyihiin ay helaan Cabdikariin oo marka arrimaha ololaha iyo dhaqaalaha ku baxa hadii aynu istul istaajino waxaan ognahay ololaha lacag badan baa ku baxaya waxa jira tuhmo ah in dawladda iyo meelo badan lacagahaas laga keeno waxaan ognahay oo dadku badidoodna ay aaminsan yihiin xildhibaanada wax dooranaya iyo musharaxiintu in lacag isweydaarsi dhexmarayaan halkee baa lacagaha ka keenaysa walaal waa mahadsan tahay ani sideedaba mabda ahaan waxaan aaminsanahay qofka dal madax u noqonayaa inuu noqdo qof ku yimaadahay rabitaan iyo dareen dadkiisa iyo ummadiisa ku yimaadahay iyo wadasho dadkiisa asaga ay wataan iyo rabitaankooda inuu ku yimaado anigu marka maadaama mabdaas aan aaminsanahay waxaan ahay murashax madax bannaan iskiis u taagan cid ajnabi iyo cid gaar ah ay wadataan ay sijiri dadkiisa iyo shacabkiisana ay wataan ayaana dadka Soomaaliyeed ee xildhibaanada oo Soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan fikirkeyga iyo taladeedii iyo caqligeyga aan ku qanciye inaan lacag ku qanciyo mar rabay waxaan rabaa inaan caqligeyga iyo fikirkeyga iyo waxa aan rabo inaan qabto inaan ku qanciyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo waramayay Muxuudiin Axmed Rooble ka dhagaysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com ciyaarihii ayaa inoo soo socda balse markan ku dhowaad 50,000 oo qoys ayaa abaarta sanadkan ku dhufatay dowlad deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya waxay ka dhigtay dad barakacay oo aan caawimo ay sugaan mooye aanan wax kale heli karin dadkan ayaa mutay gacanta bini'aadamka maadaama ay xoolihii ay noloshooda ku tiirsanayd oo 1 milyan oo neef kor u dhaafayay ay kaga baxeen abaartaas dhibaatada dadkaas ay wajahaan iyo sida ay noloshooda haatan tahay waxaa warbixintan ku eegaya wariye Ismaaciil Ibraahim Buurgaabo oo Jigjiga jooga khayba gaarana aadan waxa ay ka mid tahay 48,000 oo qoys oo 3 bilood ugu dambeysay abaartu soo barakicisay khayba gaarana oo ah hooyo 6 caruur haysata ayaa 3 geedi kadib soo gaadhay xirada barakacayaasha ee Farburo ee duleedka magaalada Cadaadle kadib markii ay abaartii dhaweyd marisay dunyadii ay dhaqanayeen oo dhanayd 2 tiro oo ari ah iyo 20 lo ah xaaladda nololeed ee barakacayaasha oo 2,000 oo qoys kor u dhaafaya khaybana ay ka mid tahay ayaa ku tiirsan badi bulshada ay dulsaarka ku yihiin ee magaalada Cadaadle sida khayba gaarana ay sheegtay magaalooyinka iyo dadka qaxootiga loo cararaa la yiri muddo dadka lagu dul noolaa markii dambe buural baan uri iyo waxbaan guranay buural baan dhisnay banaankaasaan degnay barbardhig maalinkii hore aan ka fiicnayn oo dad hantidiisa u xaraysan tahay oo ruuxii ehel noo imaado xoolo siin oo u qali oo caanaha ka maali oo ka safran oo suu doona ka yeeli oo xor oo madax bannaan baan ahayn marka haddana annagii baa hadda wax raadinayno oo ehel wax ka soo qaabtaa iyo haddii alla noloshaanadii annagii baa hadda ku wareersan in ka badan 1,150,000 oo neef ayay abaartani galaafatay iyadoo sababtay in 10,000 oo qoys ay noqdaan barakac baahan oo ay luntay habnololeedkoodii sidee ayay qoysaskani u soo ceshan karaan isku filaanshahoodii ay abaartu lumisay waxaan weydiintani hordhigay Cabdifataax Maxamed Cabdi wasiir ku-xigeenka xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka ee dowladda deegaanka Soomaalida dadkan runtii soo barakacay waa dad xoolahoodii waayey marka dadka laba mid bay noqon doontaa hadduu la yidhaahdo hadda waa barakac wixii caawimaadkan dadkaan gaadhsiinan inuu gaadha haddii ay biyadhaan noqoto waqtigaada biyaha la dhaamin hadda roob baaba da-ay iyo haddii raashin noqoto labadaba gargaarka emergencyga waa la siinayay iyo wixii hay-aduhu ay qabanayaan aan duuliga ahayn oo goobahan barakaca hay-aduna ka warhayaan arrinta kale xukuumadda u qorshaysan waxa weeyaan dadkan in livelihood recovery loo sameeyo oo habnololeedkoodii ay ku noolaayeen ka istaagay dib si ugu soo noqdo marka in xoolo loo gado iyo xoolo dhaqato ku noqdaan oo optionkaasi iska adag yahay dadkii in haddana intay ku noqdaan xoolii dib u dhaqdaan ay ku adag tahay oo dadka marka hadda lala xidhiidho xoolo dhaqatadii iyo nolosha ku jiraan ayaa isaga adkayd markii hore iyo in ay dadkan communitygan iyo tuulooyinkan meelahan ay soo degeen habnololeed loogu abuuro oo si ay uga baxaan barakacnimada labada mid bay noqon doontaa insha Allah marka qorshaheediina saad ka warqabtaan xukuumadda hadda sanadkan in wax soo saarka beeraha ama damaanad qaadka cuntada xoogga la saaro yaa qorshayaasha ugu muhiimsan ah iyo dhinaca biyaha oo iyadana helitaanka biyaha ila biyoodyada la badiyo
marka labada arrimood haddii laisla helo noloshoodu way soo kaban. abaarta deegaanka ku dhufatay sanadkani waxay ku soo kordhisay tiradii hore ee barakacayaasha ee abaarihii hore iyo colaadihii barahoodii ay soo dhaafiyeen ku dhowaad 50,000 oo qoys oo xoolahoodii ay nasiib u helin inay soo gaaraan naqa roobka gugan oo qaybo ka mida deegaanka iminka biyo dhigay balse qaybo gaarana waxa ay diyaar u tahay inay qaabisho waayaha nolosha si walba ay u soo wajahaan. xoolo lagu laabto ma jiraan hadda xoolo lagu laabto ma jiraan waxa ay qorshaysan haddii xoolihii aan waayay iyo wixii aan hadda ka hor kusoo dhaqmi jiray inaan xoogayga haddii ilaahay laga helo wax ku qabsado muruqayga wax wixii aan u maleeyo inaan qaban karo inaan wax ku qabsado oo noloshayda iyo ilmahayga noloshiisa aan ka raadiyaan rabaa ay qorshaysan. codkaasina waxay u dambeeyey warbixintii ismaaciil buurgaab uu ka soo diray magaalada jigjiga. qaar ka mid a facebooka dhegeystayaasheena ayay ra'yigooda warbixinta kaga soo dhiibteen midaan soo qabtay farduus xuseen jirgaale oo ka soo qortay maysan sheegin waxay joogtaa degmada ceegaag ee gobolka sool waxay leedahay dadka dowladdeegaanka soomaalida waddanka etoobiya ee abaarahu ay saameeyeen waxay leetahay in si deg deg ah ee lagu gurmado dadkaasi oo dowladda mustafa cagjar ay garab istaagto dadkaasi inkastoo qalalaasa diimeed uu ka jiro etoobiya. waxaan qaar kamid qof kamid dhegeystayaasheena facebook oo ra'yigeeda halkaa ka soo dhiibanaysay warbixintaasi uu inala socodsiinayay uu jigjiga ka soo diray ismaaciil ibraahim buurgaabo. haatanna wararkii ciyaaraha iyo faarax lamaane. wararka ciyaarahana waxaan ku bilaabaynaa erling haaland oo xagaaga soo socda la filayo inuu ku biiro kooxda manchester city. toddobaadkan ayaa waxaa lagu wadaa in la xaqiijiyo soo wareegitaanka erling haaland uu ku soo wareegayo kooxda manchester city isagoo kaga soo biiraya kooxda Borussia Dortmund. qaybta ciyaaraha ee BBC-da ayaa waxa ay ogaatay oo ilo kala duwan ay ka heshay in lacag gaaraysa 63 milyan oo geni lagula soo wareegi doono 21 jirkan weerarka u ciyaara xulka qaranka ee Norway iyadoo akhbaartaasna looga dhawaaqi doono waddanka Jarmalka xilli aan aad u sii fogeyn. hase yeeshee kooxda Manchester City weli waxa ay ka gows adeegaysaa in wararka noocaasa ee ku saabsan Erling Haaland inuu u soo wareegayo in markaasi ay ka hadlaan. ciyaartooyga la yiraahdo Alexander Zinchenko ayaa isna waxa uu ku marti qaaday wiil 10 jir ah oo reer Ukraine oo qaxooti ah in uu tababar la qaato kooxda Manchester City si cunuga uu u dareemo inaanu ku jirin xanaano in muddo ah. 25 jirkan oo isaga qudhiisa u dhashay waddanka Ukraine dhexdana ka ciyaara ayaa Instagram-kiisa waxa uu soo dhigay sawirro muujinaya isaga oo markaasi tababar u sameynaya wiilka yar ee 10 jirka ah oo ka mid ah ilaa iyo 2 milyan oo carruur ah oo markaasi ku khasbanaaday in ay dalkoodii ka soo cararaan kadib markii Ruushka uu ku soo duulay. kani waa Andrei ayuu yiri hadal uu ku soo qoray Instagram-ka waana 10 jir maanta waa uu nabad qabaa buu yiri oo waa uu bad qabaa sida dadka kale ee reer Ukraine waxaa khasab ku noqotay in gurigiisii uu ka soo barakaco oo uu la soo qaxo qoyskiisa bacdama halkaas dagaal uu ka jiray. wararka kubadda cagta inta aynan ka bixin caawa ciyaar kulul ayaa jirta oo markaasi dhex mari doonta kooxda Aston Villa oo marti gelinaysa kooxda Liverpool 83 dhibcood ayay leedahay iminka Liverpool waxaana ay tiigsanaysaa horyaalka markaasi in ay ku qabsato kooxda Manchester City oo ku hogaaminaysa 86 dhibcood. haddii Liverpool ay badiso caawa isku dhibco ayay noqonayaan iyada iyo kooxda hoggaanka haysa Manchester City kadibna Jurgen Klopp iyo Pep Guardiola labaduba waxa ay markaa ku xisaabtamayaan koox walba in ay badiso oo marnaba aan dhinacooda dhulka la dhigin iyagoo ku haminaya mid walba inay qaado horyaalka Premier League. ciyaartaas waxa ay soo geli doontaa Afrikada Bari saacadu marka ay tahay 10 dhinaca kalena Spain oo goor horeba kooxda Real Madrid ay ku guuleysatay horyaalka La Liga ayaa caawa waxa ciyaari doona ilaa iyo 6 kooxood. Valencia waxa ay garoonkeeda ku marti gelinaysaa Real Betis ciyaartaas oo dhacaysa Afrikada Bari saacadu marka ay tahay 8 fiidnimo halka Granada ay caawa 9 iyadana marti gelinayso Atletico Bilbao. Barcelona garoonka Camp Nou waxa ay kula ciyaari doontaa kooxda Celta Vigo saacadu marka ay tahay 10 iyo barka. orodyahanka reer Kenya ee la yiraahdo Ferdinand Omanyala ayaa isna waxa ka go'an in uu noqdo qofkii labaad ee Kenyan ah ee loo caleemo saaro horyaalnimada 100 mitir ee qaaradda Afrika. ciyaartooygan oo iminka haysta rikoorka orodka 100 mitir ee fagaxda ah ayaa sabtidii waxa uu markaasi ku orday 9 sekan iyo 85 ilbiriqsi isagoo ku guuleystay tartanka la yiraahdo Kipkeino Classic ee ka dhacay magaalada Nairobi.
jirkan ayaa hore waxa uu u dhigay rikoorka qaaradda Afrika ee orodka fagaxda ah ee 100 mitir oo markaas uu ku sameeyey 9 sakan iyo 77 ilbiriqsi isla garoonkii uu sabtidii ku badiyey. waxa kale oo uu iminka u dhaarsan yahay ama uu doonayaa in uu guul ka gaaro Afrika dibaddeeda. Joseph Gikonyo ayaa waxa uu ahaa ninka kaliya ee ka soo jeeda wadamada Afrikada bari ee markaasi qaaday horyaal qaaradeed oo 100 mitir ah xilligaas oo ahayd 1990 wararka ciyaarahana inta noo joogeen. tahay faarax lamaane aad buu mahadsan yahay wararka ciyaaraha uu nala socodsiinaya bal markana sheeko ka duwan sheekooyinka aad qaybaha hore ee barnaamijka ku soo maqasheen waa haweeney muslimada oo 28 jir ah ayaa waxay tagtay maxkamad ku taal waddanka Hindiya iyadoo u gudbisay dacwad la xiriirta in ninkeeda ay ka hor istaagto inuu guursado hal xaas wax ka badan oo iyada ah isagoon ogolaansho ka haysan iyada in ay markaa u ogolaato inuu xaas labaad la guursado halka diinta islaamka ay ragga u banaysay inay guursan karaan ilaa iyo 4 xaas waase haddii uu awoodo ninku. haddaba gabadhan lagu magacaabo Reshma ayaa waxa ay sidoo kale doonaysaa in maxkamadda sare ee Delhi ay ku amarto dowladda in ay dejiso shuruuc lagu maamulo guurka badan. xasan sheekh cumar wariyaha BBC-da ayaa faafahinta warkaas soo akhriyey goordhoweed ayaan weydiiyey bal inuu inoo faahfaahiyo. cabdi fitaax gabadhan magaceeda waxaa lagu soo koobay Reshma waxaana ay ka dalbatay maxkamadda sare ee Delhi ee dalka Hindiya in dowladda ay ku amarto inay soo saarto shuruuc lagu maamulo guurka tirada badan. sida ku cad warqadaha ay maxkamadda u gudbisana waxay isguursadeen nin lagu magacaabo Shucayb Khan bishii Janaayo ee sanadkii 2019 bishii November ee isla sanadkaasna lamaanahan waxaa qoyskooda ku soo biiray ilmo yar oo ay Reshma u dhashay ninkeeda waxaana ninkeeda ay ku eedeysay rabshad naxariis darro iyo dhibaatooyin kale. ninka ayaa dhankiisa isna u jeediyay xaaskiisa eeda kuwa la mid ah. waxaa kale oo ay sheegtay inuu hadda doonayo inuu isaga tago xaaska oo ayada ah waa Reshma iyo ilmaha yar ee u dhashay uuna doonayo inuu xaas kala guursado. waxay ku tilmaantay ficilada ninkeeda uu ku dhaqaaqayo kuwa aan dastuuri ahayn, shareecada ka soo horjeeda, qallafsan, bini'aadanimada ka baxsan oo wuxuushnimo ah. waxay intaa raacisay in loo baahan yahay in dhaqankan iska guursada ah la xakameeyo si loo yareeyo bay tiri dhibaatooyinka haweenka muslimiinta ah soo gaaraya. xasanow marka kiiskan siday dadka gudaha waddanka Hindiya uga falceliyeen? siyaabo kala duwan ayaa arrintan looga hadlay oo dood ayuu ka dhaliyey kiiska haweenaydan gudaha dalka Hindiya iyadoon ognahay si guud in guurka badan uu sharci darre ka yahay dalkaasi marka laga reebo dadka muslimiinta ah ee dalka Hindiya oo diintu dabcan ay u ogoshay inay guursadaan raggu 4 haween ah waa haddii ay awoodaan. waxaa haddana sidaasi jira oo saameyn ku yeeshay dabcan sharciyada kale ee dalka Hindiya ka jira ee dadyawga aan muslimiinta ahayn. laakiin gudaha Hindiya arrintu siyaasad ahaan marka laga eego cirka ayay isku shareertay oo xisbiga ra'iisul wasaare Narendra Modi ee loo soo gaabiyey magaciisa BJP waxa uu ballan qaaday inuu soo saari doono xeer madani ah oo micnihiisu noqon doono in guurka iyo furiinka aan loo adeegsan doonin sharciyada diimaha ku salaysan ee u gaarka ah bulshooyinka kala duwan ee dalka Hindiya laakiin la hoosgeyn doono sharciga guud ee quseeya dhammaan muwaadiniinta. xilli dalku uu yahay mid si weyn u siyaasadaysan marka laga eego dhanka diinta dib u habayn kasta ayaa la leeyahay oo la soo jeediyo ama dowladdu ay soo saarto waxaa hubaal ah in loo qaadan doono duulaan ka dhan islaamka oo ay wadaan dad kale oo ku nool dalka Hindiya. taasna waxaa dabcan aaminaya ayaa leeyahay dadka muslimiinta ah. culimada diinta islaamka ee waddanka Hindiya iyagu maxay ka yiraahdeen arrintan? culimadu arrintan way ka hadleen. sheekh lagu magacaabo SY Qurayshi madaxii hore ee doorashada isla markaana ah caalim diinta islaamka ku xeel dheer ayaa waxa uu sheegay in aragtida guud ay tahay in qof kasta oo muslim ah uu guursado 4 xaas iyo in ay haystaan caruur badan taasi oo aakhirka horseedi doonta sida uu sheegay in muslimiintu ay ka bataan hinduuga. laakiin taasi run ma ahan ayuu yidhi. ragga muslimiinta ah waxaa loo ogol yahay sidaynu ognahay in ay guursadaan ilaa 4 dumar ah sida lagu sheegay qur-aanka kariimka laakiin waxaa qur-aanka uu raaciyey ogolaanshiyaha ragga loo ogolaaday inay guursadaan dumar shuruudo adag kuwaasoo ay adag tahay fulintooda marka la eego oo dadka qaar ay ku adag tahay. qur-aanka waxa uu leeyahay dabcan ninku wuxuu guursan karaa 1 xaas, 2 xaas, 3 xaas
iyo 4 xaas laakiin waa in uu cadaalad u sameeyaa oo sida ilaahayba qur-aanka uu ku sheegay uu cadaalad u falaa haddii taa uusan ninku samayn karinna dabcan waa looga digay oo culimmada waa uga digeen ragga inay guursadaan dumarka badan dhanka kale dumar ayaa ka hadlay oo u dooda ama u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ee dalka hindiya waxay leeyihiin dhibaatooyinkan guurka badan waxa ay dumarka ku sababeen dhibaatooyin soo gaara jir ahaan iyo dabcan caafimaad ahaan laakiin waa doodooda la xiriirta saamaynta uu ku yeeshay dumarka guurka badan ee dalka hindiya xasan sheekh cumar aad buu mahadsan yahay warbixintaas ayuu inoo faahfaahinayay bal facebook aan eego qaar ka mid a dhegeystayaasheena ayaa halkaas dood badan ka abuuray rag iyo dumar bay isugu jiraan bal qofka ugu horreey aan soo qabteen nimco faarax baashi waxay leedahay oo iyadu haddaysan rabin gabadhay ka hadlaysa dabcan in lala guursado may ninkeeda kala hadasho maxaa muslimiinta oo dhan ka galay ilaahay baaba u baneeyey dhakhtararka guurka ee aad maqashay weeye tani siyaad ibraahim ibnu ibraahimna wuxuu leeyahay kii hal leh asaga howl kale ka hadlayaaba kii hal leh ha labaysto kii laba leh ha saddexaysto kii saddex leh ha afaraysto waa waanadii ugu dambeysay ee aan maqlo dabcan meel kaleu ka maqlay muusan sheegin meeshay tahayna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dunida iyo maanta ay wadajirka usoo saareen xasan cali gelle iyo samiir cabdullaahi jaamac anigoo caftaax ibraahim cageerna in la socodsiinaya cidduu barnaamijkan dhaafay wax dib uga daalacan kartaa barteena internetka facebook waxaa inoo fadhiyay macaawiye maxamed buraale halkaad nagala socoteena b b c ba ahayd intaas baan waqti u helnaysay waxaynu ballanaa 7 beri subax inta ka horreysay nabadgelyo